bismillahi raxmaani raxiim. Shalay abaarihii duhurnimo ayaa cadowga nabadiidka ahu wuxuu soo weeraray meel ciidanku ku sugnaa oo daqaad ayaga laga qabsaday oo ka koraysa aagga Shabeelow oo la yiraahdo Xawaal Cumar oo u dhaxaysa gaadhan meel la yiraahdo iyo Eelhuur u dhaxaysa una dhow Eelhuur. runtii dagaal culus baa meesha ka dhacay, cadowgana khasaaro badan baa loogu geystay, labada dhinacna waxbaa gaaray. meeshaas saakay baan mar labaad ku rogaal celinay. goobtii shalay lagu dagaalamay iyo goobo ka shisheeyana ciidamadaydu dib bay u hanteen u qabsadeen. xaaladuna hadda aad bay u degan tahay. insha allahu waxaa naga go-an sidii horeyba mar badan aan u sheegnay waajibka iyaga inaanu sii fidino haddii ilaah yidhaahdo. dagaal qaraar buu ahaa oo saacado badan socday oo ilaa habeenkii soo gaaray, marka khasaarihiisi intee buu la ekaa dhinaciina? dhinaca iyagu khasaara waa jira, waana yar yahay. inta anagoo soo gaadhay 3 sargaal ama 1 sargaal iyo 2 ciidan 2 askari ayaa naga dhimatay. ilaahay ha u naxariisto, waa shahiideen. dhaawacuna aad buu yaryahay, ilaa 7 ayuu dhaawacu gaarahayaa. khasaaraha dhinaca cadowga inta goobta uga dhimatay 24, dhaawac fara badanna runtii way qaateen oo aan ka helayno meelaha ay geysteen, xogta aan ka helayno. gaadiid dagaal ama tiknika dagaal oo aad lahaydeen baa la sheegay inay dagaalka ku gubteen, imisay ahaayeen iyaguna? waa 1 baabuur weeye, 1 baabuur. duulaanka iyagaa idinku soo qaaday, laakiin sidaan ognahay bilihii ugu dambeeyey idinkaa duulaan ahaa, marka maxaa keenay markan in idinka laydinku soo duulo? dagaal, duulaan iyo difaac iyo weerar intaba wuu leeyahay. annagu daraad baan goobta ka qabsanay, goob aada muhiim ah ahayd. ayaguna shalay soo weerareen. marka dagaal haddii la dagaalamayo marna annagaa weerara marna ayagaa weerara, waa iyo noocyadiisa kala duwan weeye. aagagii dagaaladu ay ka dhaceen markii aad saaka ku laabateen waxaa lasoo wariyey in meydad goobta loogu tegay, marka maxay ahaayeen? meydadka ayagaa iska lahaa intooda badan oo ay arki waayeen oo ay ka tageen. annaguna 1 nin oo dhaawacaan ka helnay meesha oo meesha aan kala kulannay. meydadka intooda badan ayagaa iska lahaa. jenaraal biixi markii hore wuxuu qorshuhu ahaa inaad xarar dheere tagtaan, laakiin aagagii aad qabsateen baa hadda iyagiibaa duulaan lagu yahay, marka maxaa isbedelay? runtii qorshaha iyagii xarar dheere iyo ka shishay ilaa iyo ceel dheer sidii weeye, laakiin dagaalku ma ahan dagaal iska orod ah. waa dagaal aanu qorshaynayno oo hadba aag iyo hadba wajahad ku socda. ayagana hadda awoodoodu aad bay u yartahay. xog baan ka haynaa, waa naflacaari, waana daba soconaa, kana hari mayno insha allah.